وكأتكانينا كوا قبه dadka in ay meesha joogaan in lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barakicinta iyo balaayada kuwa ku haya waa ka waxaynina waana ka adkaanayna dhinac ka soo ama daacish ahaadeeno oo aad aragteen dagaalka adag ee hadda maxaan ku raadaay dadka reer Puntland iyo dawlad goboleedka Puntland ay ku jiraan oo runtii shaqo amaan mudan ah shaqada ay qabteen iyo dawlad goboleedan kaleba midii ay shabaab ka soo qabteen intaba shacabka shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay ama argagixis ama daacish argagixis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dawladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raadaay dhalinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaas horta guush ay bilaabatay waa hore u dhahay argagixisadu waa malaay ku nool meel yaro waa iska yaro biyo ah meesha isku dhex dabaalanaya waa iskada haddii inta baarka laga bixiyo biyuhu ay ka daataan malaaygu waa iska eberon biyo ku jira malaay kuma noolaan karo dadkanaga fahamkiisa maanta meesha uu joogo uu gaaray waa iskadiyo biyihii kasii dhammaanayaan ay kasii socdaan waaye inta ku dhimanna waa ka dhammaan doontaa haddii aa layidhaah cawo iyo maalin dhallinyaradeenna ciidamada qalabka sida ee kala duwan saacadaas aan meesha fadhino buraha laga hadlayo bariyahan oo dhan ee ku yaala Puntland ilaa meel la yiraahdo beero yabaal oo gobolka Hiiraan ka tirsan ilaa maxaan ku yiraahdaa Sowad oo muxuu ahay shabeellada dhexe keen meel la yiraahdo agagaarka muxuu ahay Xawaadle ee webiga agtiisa ilaa maxaan ku yiraahdaa Baay iyo Bakool iyo maxaan ku yiraahdaa Jubbaland gaarsii meel aanan saacada aan joogno askari Soomaaliyeed aanu kula diriraynin cadowga argagixisada ma jirto ama xabad ha socoto ama ha hor fadhiyo askariga qoraxda aad aragtay taagan banaanka oo la taagan oo dagaal kula jira argagixisada dagaalka noocaas ee naftii horanimada ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa mas'uulka ah ayaa qaadan ayaga wadaan haddii marka wiilkii meesha ku soo dhaawacmay meel lagu daaweeyo aanu haysanin oo xataa dadkiisu haddii ay wax iska dhaqan yihiin dawladda inta awoodi wayso dadkiisu ay rabaan inay daaweeyaan aanay haynin meel ay ku daaweeyaan in dibad loola cararo ay tahay oo dawladdu haddii ay xataa qarash bixinaysaa inay dibadda qof u qaado ay tahay culayskeeda intuu leeyahay qofkaas visa loo sameeyo laga soo dhaco dawlad hebel lala hadlo inta laga hadlo ay gaarto maanta waa ka duwan tahay isbitaalada private-ka magaalada ku yaala in badan oo kamid ah maanta waxaa jiifo ciidamadaas aan sheegay geesiyaasha qaarkood jiifa oo lagu daaweynaya kuwa private-ka waay isbitaali dawladdu leedahay xoog dalka Soomaaliyeed iskale intuu qaado waa joogtaa laakiin marka qaarkood ama waa ka badanay tiradii ama qalabka iyo wixii oo loo baahnaayaanu isbitaalkii dawladda ee ciidamada aanu haysan sidaas daraadeed isbitaalada private isbitaalka Erdogan isbitaaladan dhan private-ka oo dhan yaa la geeyaa oo lagu haya haddaanu isbitaalka private-ka jirin xagee la geey lahaa dawladdu isbitaaladaas lacagaysiisaa waa bixisaa daawadooda dawladda bixiso laakiin isbitaalada intooda badan waxay dawladda u sameeyaan askarigaas discount ay u sameeyaan lacag aad iyo aad u badan ayay cafiyaan oo u badan faa'iidadii ama wixii ay heli lahaayeen ayagu in badan oo kamid isbitaalada private-ka waxay dawladdu ku soo dalacaan waxa ku baxaya qofkan meesha la soo seexiyay sariirta caafimaadka qofkan uu adeegayo waxyaabo la mid ah faa'iido inaan inta badan lagama sameeyo muxuu ahay dhalinyaradeena muxuu askarta qaar dawladda bixiso qaar dadkooda la baxa Allah khayr siiyo oo naga awoodna annaga bixinayna dhaha marka horta caafimaadku asalkiisa waa saas qof jiran horumarna ma galo gargaar kale iyo wanaag kale ma sameyn karo maskaxdiisuna ma degana maxaan ku raadaay waa qof mujtamaci wixii uu ku lahay aanay ka helin soo dawladda iyo mujtamaca guud ahaan waxay faa'iido ka helayaan qofka caafimaadka qaba ee ordaya ee ilmihiisa u xamaalanaya inta uu waxaynaya ee dawladda garab istaagaya cashuurta bixinaya waxaa soo haray intaas kadib walaalayaal dadka intii awoodo
meelaa loo helay isbitaallo baraafidaa loo helay dadka inta aan awoodin maxaa u taraa mas-uuliyadda ugu horeysa ee dadka saaran dowladda saaran taas waaye dadka inta hooyada xanuunsan ama cunugu ka xanuunsan yahay ee aanan awoodin in ay maxaanku rahdaa $5 oo muxuu ahay dhakhtarka booqashadiisa ama $10 dhakhtarka booqashadiisa iska bixiso ee aanan awoodin in ay critical hadduu yahay isbitaal ay seex aanan awoodin maxaa u taraa waaye mas'alada dowladda haysata inay ka jawaabto rabtaas waa ka jawaabtay waata wasiirka iyo muxuu ahay doctorkii agaasima isbitaalka halkan ay ka sheegayeen in 6 hosbitaal laga sameeyo 6 dowlad goboleed oo referal ah isbitaal weyn oo yani degmooyinka meelaha iyo dadka wax looga qaban waayo meeshii xamar loola soo carari lahaa in muxuu ahay magaalo madaxda dowlad goboleedkaas loola cararo ayadaa u dhow la geeyo oo isbitaal dowladdu ay leedahayna uu yahay dowladdu kaasay ka shaqaysaa national transformation plankeedu qayb ka yahay wayna dhaqan gelaysaa ilaahay idankiis waxay ayada awooddo iyo waxay kaalmo magaca dowladnimada ku raadisaba dowlad goboleed kasta hal isbitaaloo weyn oo sidaas inuu yeesho waa ka shaqaynaynaa insha allah